dowladda federaalka Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay guulo militari ka gaadheen dagaalkii ay ka wadeen waqooyiga deegaanka Tigreega. ciidamadan ayaa xukuumaddu sheegtay in ay ku sii saqayaan dhinaca magaala madaxda ismaamulka Tigreega oo ah halka ay u dan leeyihiin. dagaalkan u dhexeeya dowladda federaalka iyo ismaamulka Tigreega oo ah mid aad u culus ayaa waxay warar ku sheegayaan in ismaamulka deegaankaasi ay dagaaladaasi ku waayeen dhul aad u ballaaran. dagaalyahanada Tigreega ayaa wada dagaal ay ku difaacayaan magaalada Alamata oo ay dhawaan dowladda federaalka Itoobiya sheegtay in dagaal halkaasi ka dhacay ay kula wareegtay isla markaana ay gacanta ku hayso. dadka ka cararaya dagaalkan culus ee ka socda deegaanka ayaa ka barakacay guryahoodii waxayna nafta ula carareen dhinaca dalka Suudaan. xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa war qoraal oo uu soo saaray waxay ku sheegeen in dagaalku ku wajahan yahay madaxda sare ee TPLF. howlgalkan oo loogu magac daray sareynta sharciga waxay xukuumadda federaalka Itoobiya sheegaysaa inuu yahay mid dib loogu soo celinayo nidaamka iyo kala dambeynta shacabka deegaankaasina la ilaalin doono xuquuqdooda. war qoraal oo ay soo saareen ismaamulka deegaanka Tigreega ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ee ku sii siqaya magaalada Makale ay la kulmi doonaan iska caabin xoogan. madaxweynaha deegaanka Tigreega Debrashen Gabramekala oo hadlay ayaa qirtay in ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay si rasmi ula wareegeen magaalooyinka Shire iyo Aksum, hase yeeshee ay yihiin guulo ku meel gaadh oo aan la isku sii haleyn karin isla markaana ay guul darro xanuun badan badi doonaan ciidamada federaalka Itoobiya. hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda federaalka Itoobiya ay sheegtay in ay kulaalayso magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega, taas oo ay ku eedeysay in TPLF ay burburiyeen ilaa 4 bridge oo loo mari jiray magaaladaas isla markaana magaalooyinka kale ee dalka Itoobiya ku xidhi jiray. dowladda Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku cambaareysay weeraradii ay TPLF dhawaan ku qaadeen magaala madaxda dalka Eritrea ee Asmara. waxay ku eedeysay ismaamulka Tigreegu in uu gobolka Geeska Afrika la doonayo qaas, iyagoo ammaanay dowladda Eritrea sida ay uga goos adeegtay in ay ka falceliso weerarkaasi lagu soo qaaday. qaramada midoobay iyo wadamo shisheeye ayaa baaqyo isdaba jooga waxay u dirayaan labada dhinac, waxaana loo soo jeedinayaa in ay isxakameeyaan maadaama ay dad badan ku dhinteen dagaaladan. in ka badan 27,000 oo qof ayaa la sheegay inay ku barakaceen colaadaha toddobaadyada ka socday waqooyiga dalka Itoobiya, waxaana xukuumadda Suudaan ay wada qorshe dib u dejin loogu sameynayo dadka ku barakacay colaadahan ee ka soo tallaabaya xadka ay la wadaagto dalka Itoobiya.